السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرة waxaan ku baranaynaa tuple wuxuu yahay in Python. marka haddaynu sharaxa galno definitionka tuple waxa weeyaan a tuple is a collection of items waa collection waa sidii list oo kale isna collection weeyaan of items that are ordered marka wuxuu leeyahay order buu leeyahay indexkii 1 0 1 2 3 4 and immutable weeyaan immutable macnihiisu waxa weeyaan unchangeable cannot be changed after creation marka tuple wuxuu kaga duwan yahay listiga markaad listiga samayso waxaad ka bedeli kartaa waxbaad ku dari kartaa waxbaad bedeli kartaa laakiinse tuple isaga waxba laga bedeli karo so it's like a list but unlike a list so wuxuu la mid yahay listiga laakiinse listiga wuxuu kaga duwan yahay tuples cannot be modified once created haddaynu intaas yar sharaxno order macnihiisu waxa weeyaan the items in a tuple have a defined order marka orderkaas marka hore sidaad u samaysay orderkii unbay haysanayaan indexka ugu horey 0 noqonaya itemka ugu horey ku xiga 1 marka you can access the item using their index sidii list oo kale indexka aad isticmaalaysaa markaad rabto inaad markaa wax soo qaadato immutable macnihiisu waxa weeyaan waa unchangeable saan hore usoo sharaxnay once a tuple is created you cannot add remove or change it is items marka waxba kama bedeli kartid waxba kuma dari kartid waxba kama saari kartid sidaa aad u samaysay ayuu ahaanayaa heterogeneous macnihiisu waxa weeyaan marka a tuple can store elements of different data types marka sidii list oo kale buu la mid yahay string baad gelin kartaa integer float list tuple kale waxaasoo dhan baad gelin kartaa marka qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan duplicates uu ogol yahay tupleku marka duplicateska setka on baran doono soo socdaan arki doona isagu duplicateska ma ogola laakiinse tupleka iyo listuga way ogol yihiin duplicateska okay haddana marka tusaale aynu arkaynaa ku saabsan tupleka waxaanu samaysanay waxaan kaloo muhiim in la ogaado tupleka wuxuu kaga duwan yahay listiga wuxuu isticmaalayaa parenthesis listiga square bracket ayuu ahaa marka halka haddaynu iminka sidaa dhahno wuxuu isu bedelayaa list ayuu isu bedelayaa laakiin haddaynu tuple inaynu samayno waa inaynu isticmaalnaa round bracket ama parenthesis kolba sidaad u taqaano ta ugu horeysa waa taas waxaad arkaysaan marka halkan waxaynu gelinay string laba string integer float laba boolean list kale aynu dhex gelinay waxaan kaloo dhex gelinay tuple kale marka itemskaas oo dhan ba ayuu qaadanayaa haddaynu haddana dhahno print len my tuple wuxuu inoo sheegaya inta item ku jirta marka waxaa ku jira 8 items waxaa muhiim inaan ogaano marka listigaasi waa hal item tuplekaasina waa hal item marka semi comahaas ayaa kala saaraya itemska saan usoo sheegnay marka index ayuu leeyahay haddaynu dhahno print my tuple 0 wuxuu print garaynayaa Mohammed marka sidii listiga oo kale index ayuu leeyahay haddaynu rabno marka inaynu soo qaadano listigaas waxaan oranaynaa print waxa weeyaan 0 1 2 3 4 5 6 waa index 6 marka haddaynu dhahno index 6 wuxuu noo print garaynayaa listigii index 7 haddaan dhahnana wuxuu noo print garaynayaa marka tuplekaas haddaynu rabno 6kaas numberka ugu dambeeya inaynu soo qaadano oo ah 6 waxaynu markaynu oranaynaa marka hore itemkii indexkiisu wuxuu ahaa 6 kabacdi marka listiga gudihiisa indexkan u baahnay wuxuu noqonayaa 2 kan waa 0 1 2 marka waa inaynu dhahnaa 2 marka waxaynu samaynay iminka nested tuple ayaynu samaynay waxaynu dhex gelinay collection kale ayaynu dhex gelinay run haddaynu dhahno wuxuu noo print gareeyey marka 6kaas inoo print gareeyey tuplekaas haddaynu rabno inaan print garayno isagana waxaynu oranaynaa un index 7 okay haddaynu run dhahno marka wuxuu noo print gareeyey tuplekii ayuu soo qaatay 1 2 3gii haddaan rabo number 2gaas inaan soo qaatana maadaama uu yahay nested index kale aynu isticmaalaynaa oo ah 1 marka 0 1 ayuu noqonayaa number 2 haddaynu dhahno wakaa number 2 inoo print gareeyey marka sidaan hore usoo sheegnay waa indexkii ayuu leeyahay laakiinse tupleka waxba lagama bedeli karaa nidhi waxa weeyaan immutable baynu nidhi unchangeable haddaan isku dayo marka inaan hadda sidii listiga oo kale aan modified ku sameeyan dhahno number 2ga
1 2 3 gaas waxaynu ka dhigaynaa 1 2 4 run haddaan dhaho marka waxaad arkaysaan error ayaa soo baxaya errorkaas muhiimadiisa inaynu fahanno weeyaan wuxuu yidhi a tuple object does not support item assignment marka tupleka waxba kama bedeli karta mar haddaad samayso isagoo dhan waad bedeli kartaa matalan mar labaad waad samayn kartaa haddaan dhaho marka iminka tuplekii intaan soo qaato haddaan markaa wax ku sii daro iminka modification kuma samaynayo ee waxaynu samaynaynaa isagoo dhan baynu recreation dib ugu samaynay marka iminka haddaan run dhaho oon markaa print my tuple markaan dhaho ka dambuu printer garaynaya laakiin micnihiisu maaha inaynu kii hore wax ka bedelnay mid cusub ayaynu samaynay taasaa muhiim in la fahmo markaa tupleka sidii listig oo kale ayaynu iskana slicing ku samayn karnaa marka haddaan dhaho my 2 haddaan dhaho is equal to my tuple slicing aynu soo dhiganay haddaad xasuutaan 0 ilaa waxaad siisaa matalan 4 marka haddaynu dhahno print waxay noo soo qaaday qaybtaas keliya marka slicingkii aynu hore ugu soo dhignay listig oo dhan aynu ku samayn karnaa haddaynu doono 0 waynu ka tegi karnaa 0 ayuu ka bilaabanayaa ilaa iyo 4 haddaynu dhahno minus 3 ilaa iyo dhammaadka sidii listi oo kale slicekan kusoo barnayn listiga ayuu la mid yahay isna marka wuxuu noo soo qaadayaa minus 3 ayuu ka bilaabanayaa minus 3 minus 2 minus 1 ayuu noo printer garaynaya marka slicekan hore usoo dhiganay haddaynu dhahno 4 ilaa 7 intaas ayuu noo soo qaadaya marka slicingkii aynu listi kusoo barannay ayaynu isagana u isticmaali karnaa maadaama uu yahay collection tupleka markaynu samaynayno laba hab baynu u samayn karnaa waxaynu oran karnaa matalan haddaynu dhahno names square bracketkii saynu hore usoo aragnay ayaynu oran karnaa markaa cali saasaynu oran karnaa haddaynu dhahno print waxaynu haysanaa tuple print gareeya haddaynu doonana parents waan ka tegi karnaa automatically haddii aad items daba dhigto ood koma u dhexaysiiso wuxuu noqonayaa tuple ayuu noqonayaa waad aragtaan inagoon u dhexaysiinin inagoon parentski isticmaalin ayuu haddana tuple sameeyey qaybtaas marka waa samayntii tupleka unpacking markaan ku samaynayno oon hore usoo dhiganay isagana waxaan oran karnaa name 1 comma name 2 comma name 3 is equal to names marka unpacking aynu ku samaynay hadda print haddaynu dhahno name 1 waxaynu arkaynaa cali ayuu soo qaaday marka tupleka unpacking sidii list oo kale in unpacking ku samayn karnaa marka waxaad oranaysaa waa inay laakiinse 3 items halka markaad ku haysato listiga ama tupleka halkana 3 variables waa inaad assignmentkii ka horreysiisaa taasaa muhiim ah marka matalan haddaynu haysano laba tuple names 1 parentski inaan iska isticmaalno waxaanu samaysanaynaa names 2 marka labadan tuple baan rabnaa inaynu concatenation ku samayno isku darno waxaynu oranaynaa names is equal to names 1 plus names print names markaa isugu keen daray concatenation ayuu sameeyey cusmaan iyo axmed wuxuu ku daray listigii hore aynu haysanay ama tuplekii hore aynu haysanay habkaas marka waxaad samayn kartaa haddaad dhowr tuple haysato waxaad samayn kartaa concatenation haddii aynu matalan hadda times 3 dhahnaan waxaynu samaynaynaa repetitionkii aynu hore usoo dhiganay magacyadii ayuu soo celcelinayaa marka midna waa concatenation weeyaan kana waa repetitionkii ama replication labadaba la odhan karaa maadaama aynu tupleku collection yahay isagana for loopkii aan hore usoo barnay aynu isticmaali karnaa marka hadaynu for okay tusaale yar hadda errorkaas aad aragteen marka haddaan for ku qoro error ayaa soo baxaya pythonku indentationku waa muhiim indentationku waxa weeyaan waa spaceka u dhexeeya
waxaad qorayso marka waa inuu ka bilowdaa all the way from the left waa inuu ka bilowdaa waa inaad bidixda kasoo bilowdaa for loop marka for name in names haddaynu dhahno halkana concatenate and indentation waa muhiim waa inuu isna gudaha ku jira haddaan halkan dhaho matalan print haddaan dhaho error ayaa soo baxaya marka waa inaynu gudaha gelinaa print indentationkaas marka si fiican hal isaga ilaaliyo pythonka marka la program garaynayo print haddaynu dhahno marka magacyadii ayuu mid u print gareeyay marka for loopkeena hore usoo barnay unbaa la isticmaalayaa indentationkaasaan idiin soo sheegay pythonka waa muhiim luqadaha kale semicolon ayaa lagu xidhaa laynka halkan laakiinse wuxuu ku garanayaa indentationkaas haddaan halkaa printiga kasoo bilaabo bilowga on run dhaho waxaad arkaysaa inuu odhanayo expected an indented block after for statement marka for statementiga kadib indented block ayaa lagaa doonayaa ayuu leeyahay waa inaad gudaha gelisaa bodiga for loopka haddii aynu rabno markaa inaynu itemska ku jira listiga aynu ogaano inta number in matalan haddaynu rabno inaynu ogaano ms7 ayaa ku jira waxaan odhanaynaa this tuple dot countgii aan soo baranay listiga number 7 haddaan dhaho intaa ii tiri kabacdina print garee wuxuu inoo sheegayaa inuu 7 ay ku jiraan tuplekan meesha countga haddaynu index u bedelno wuxuu inoo sheegaya indexka number 7ka oo ah number 2 0 1 2 haddaan dhaho matalan indexka 5 ayaan rabaa inaan ogaado isna wuxuu inoo sheegayaa inuu index 5 yahay marka 0 1 2 3 4 5 indexkiis waa 5 labadaas marka waxaad ku ogaan kartaa markaad rabto inaad countingka samayso iyo indexkii halkaasaan ku gabagabaynaynaa tubalka insha allah casharka soo socda waa set wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu